sigaadho hadday tacliin noqoto caafimaad noqoto awalba sanitationka iyo qashinka way ka shaqayn jireen wadooyinkooda habaystaan wax kasta horta JBLT-ga dad maqasho waa afar kelmadood af Ingiriisi ah Program for Local Governance and Decentralization waxa weeye barnaamij ay ku midoobeen dawladda Soomaaliland oo ka kooban dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo hay'adaha shanta ah UNICEF, ILO, UN Habitat, UNDP, UNCDF shanta hay'adood iyo dawladda Soomaaliland ayaa ku midoobay marka barnaamijkani wax weyn buu wuxuu qabtaa wuxuu qaybo badan buu ka sameeyay oo shanta hay'adood qolob wax bay qaabilsantay runtii ILO waxay qaabilsantay inay wixii engineering-ka iyo wixii procurement wixii wadooyinka haday noqoto wixii dhismayaala siday ugu sameyn lahayd policy ugu soo daraf kareen marka hore policy iyo maxay sidii loogu shaqeynayay iyo standards iyo manuals lagu shaqeeyo oo marka dawladdu daa approve karaysato ka dhigto tool ay ku shaqeysato UNDP-duna waxay ka shaqeysaa siyaasadda maamul daadejinta iyo siyaasadda barnaamijyadan lagu hagayo ay iyaduna ka shaqeysaa UNICEF-tu iyadu waxay kala shaqeysaa barnaamijkan caafimaadka iyo tacliinta inay nagala shaqeyso iyo capacity building oo UNDP-duna ay wado in dawladda hoose capacity-gooda awoodooda amba aqoontooda shaqo fulineed ay kor loogu qaado hay'adda UN Habitat-ku iyaduna wixii finance lacag iyo sida loo maamulaa iyo urban planning-ka sida GIS-yada waxyaabahaas iyaduna kala shaqeysa dawladda hoose iyo ururka dawladda hoose inay caawiso iyagana capacity-gooda dhisto hay'adda ugu dambeysay UNCDF oo inaka ugu cusub waxa weeye United Nations Capital Development Fund iyadu waxa weeye lacagyowgan JBLT-gu waa dhowr nooc sidaan sheegnay mid waa mashaariic lacag baa loo dhiibaya dawladda hoose waxa leeyahay barnaamijka lacagta waxa ku sameeysan baahida degmadiina kuwa ugu muhiimsan ee wax kala qaban kartaan ku shaqeeya markaas baahidoodii dawladda hoose soo qoraan markay soo qoraan ay u tagaan tuulooyinkii iyo dadkii community-da ay maamulayeen ayay yiraahdaan maxaa u baahantiin degmadaas maxay u baahantahay xaafadaas maxay u baahantahay wixii bay soo qoraan council-ka loo yimaada council-ka markay gudiyada xaafado iyo community-gaas oo cid kasta ka kooban inay marka la soo tashaday soo qoraan waxay u baahan yihiin ayay maxay dawladda hoosena ay u soo gudbiyaan golaha deegaankuna wuu ka shiraa waxay eegaan waxyaabaha ay soo qorteen iyo lacagta budgetka haystaan waxaanu bilaabay 2008kii intii ka dambeysay marka maamul dejinta 2014kii baa ku horeeyay lagu bilaabay waxaan ku bilaawtay dawladda hoose wax dhowr iyo 20 kuna dawladda hoose kolba loo daadajiyo tacliintii caafimaadka imikana 20 kun oo iyaga ugu yaraa imikana waxay marayaan million iyo something marka waad garan kartaa waxaanay ka dhigantay inay adeega asaasiga oo dawladda hoose la wareegaan oo hay'adaha iyo waxaan ka baxaan dawladda dhexna degmada wixii ay u barjad gareysay sanadkii caafimaad amba tacliina inay iyaduna u soo wareejiso degmada waxaan filanaa in mashruucan horta aad buu ayuu u guuleystay magaciisa aad buu noqday adduunkooda dalkeena oo dhan waa laga yaqaanaa laakiin haddana sida magaciisu yahay uma lacag badnaa laakiin wuxuu baraa dawladda hoose si ay isku kalsoon lahaayeen ay dhaqaalahooda u hagaajisan lahaayeen u kobcin lahaayeen dadkooda si loo tashan lahaayeen siday isku maamul lahaayeen oo dhan tool caynkaas lagu tababaraa oo marka inay ka qayb galiyaan go'aanada iyo waxay gaarayaan dadweynaha la tashanay maamulaan inay budgetkooda iyo waxay u qabanayaan waxay sanadka soo qabtaan si cad ugu soo gudbiyaan sanadku markuu dhamaado dadkooda oo marka lagu la xisaabtamo marka tool caynkaas buu baraa laakiin runtii waxa weeye imika wixii loo bilaabay wixii ay ka barteen bay ku maamulayaan lacagtoodii dawladda hoose oo ka badan intii JBLT-ga oo maxaa JBLT-ga waxa laga yaabaa sanadkii inuu dawladda hoose oo dhan oo imika aanu 15 marayno inta JBLT-gu uu marayo 4 degmo ugu dambeeyay imika oo ku soo darno Beligubada Salaxle Baki iyo maxay Lughaya iyo Ceergaabo Laascaanood iyo Caynabo ka horeeyay
shan iyo toban marna waxaan doonayaa sanadku intaanu dhammaan sanadka dambe ilaa sanadka dambe inaanu 23 degmo doorasho gaadhsiino marka maxaa laga faa'iiday tooliskii iyo wixii laga faa'iiday oo wasaaradda dakhligu noo hayso xafiiska championku hayo hay-adihii hadday iska tagaan iyagaa imika istababari kara waxaa loo sameeyey institute la yidhaha LGI local government institute dowladaha hoose lagu tababarayo kuwaasaa tababarada imika la wareega dowladdii dhexa wasaaradda dakhliga la wareegaysa iyagaa markaa imika degmo kasta iyagaa tababaraya marka waxay ka dhigantahay hay-adii UN-ku wixii ay keeneen dowladdii baa la wareegtay oo imika leh oo ku tababaranaysa wasaaradda dakhliga ayaa markaa u hormooda UNICEF-tu adeega aasaasiga ee dowladaha hoose lagu wareejinayo iyo maamul daadejinta ay aad iyo aad noogala shaqeeyaan waxay ka dhigantahay hay-adihii maamuli jiray caafimaadka iyo tacliinta in goordhow laga raysanayo oo wax kale ay noqonayaan dowladda hoose ay la wareeganayaan budgetkoodii budget garaysanayaan sanadkii while dowladda dhexna ay ku harayso inay siyaasadda u samayso caafimaadka inay regulation iyo xeerar u soo saarto isduuhii gobolkuna uu maxay ku kormeero amba ku eego amba standardska iyo manualska loo sameeyay ku dul eego dowladdii hoosena ay u xidhi la wareegay adeeg maadaama ay dowladda hoose u dhow yihiin dadweynaha